kaga bogo botiisiyo barta lagu ballamayo batala la soo سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرك هورين مسؤولين سراكيل يسراكيل حجين يد بليبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan musaaka ilaahay halkan ugu soo gaarsiiyay nabadgelyo aanu idinku soo booqanno wixii aad qabsateena aanu aragno xabsigan waxa igu dambeysay waan u malaynayaa iguna horeysay runtii 2011 ayaan bishii maaqa 10aad iyo 9aad mid ay ahayd meelaha 2011 ayaan soo maray xabsiga isbedel baa iga muuqda labada sanadood iyo dhowr ka bilood runtii isbedel ayaa iga muuqda inta ay marka la tusay deerka ay xiriirsan iyo labada qolaa ku kordhiseen oo aan filayay wasiir ku xigeenku socdaalkii bariga dhaweyd uu ku soo maray halkan xafiisyadii iyo furayay ahaayeen waxay galeen buugga waxqabadka wasaaradda oo waxqabadkii bahda cadaaladda buug ka soo saartay way ku sawirayeen way ku qorayeen wada arki doontaan ceelaf markaa tagtaan ceere gaabo isu duwaha ayaa haya dhowr buug oo caynkaasa وأن إذا كل أنت سوور كذي أي كشرتو وحسارك كل يقدر تدور خرواتها هديها رجل بعدين كاسة إذا كذا كاسة هاي متى كان دور خروط ترى قشة كان سوق كان مكارم ولا نقول هي ولا دودا مصار عارف دودا مصار marka waxay ku wanaagsantahay xina aan dumarka la gadiyo labada rag ku jiraad waxay ku wanaagsantahay hadda dumarku waxay la baxay halka waa laga kala xiraya hadda dibadda xafiisyada wala dibadda noo goorayna halkaas waa kala xirmaysa oo korba u kacaysaayo waa in qaybta dumarka iyo qaybta raggu aanay isma furan dhaxda isaga furan kulli dambiga ragga u badan xagga u qaad weeyahay mariya maxaabista ragga taas waa taa runtii aad iyo aad baan idinku hambalyeynaya waxqabadka aan qabsateen shalayna waan xusay oo dee taliyu goobjoog buu ahaaye markii aanu ciidanka kula hadlayna ceere gaabo waan ka warramay oo kuwana warbixintoodaan hayay ceelaf weyna warbixintooda waan hayay labadabana dee kulle socodkaan waxaan leeyahay garadag labadabana dee socodkaan ma kusii marayaa haddii aan la yidhaa labadabana saasay waxqabadkii bahda cadaaladda u kordhay ay ugu qorayiin oo ugu sawirayiin qoraal ahaanna ay ku muujisan yihiin inaa ciidanku u qabsaday waxa uu isagu qabsaday runtii shalayna waan ka sheegay ciidanka hortiisa ceere gaabo aad iyo aad baan ugu amaanay waa waxaana kaga duwan tihiin ciidamada kale ma garanaysaan ama dee xabsiyada kale haya ama taliska guudba runtii kaga duwan tihiin weeye in gobol ciidankiisii iyo maxaabiis wixii uu hayo intuu isu geegeeyay xoogoodii wax ku qabsaday baa tihiin runtii aad iyo aad baanu idinku ammaanaynaa aad iyo aad baanu idinkaga mahadnaqaynaa waa waxaa qarankiina geliseen oo tacabki idinka hadhaya waxay la tahay berdhaxaasaan ayaan iskuul aan dhigan jiray berigan dee dhalinyarada ardayga ahaa ayaa nin macallin ahaayo berigaa iskuulka maamulo ka ahaabaa fikradan dadkuba berigaa qabay ayuu iskaa wuxuu qabseen iskuulka wax lagaga qabto bilaabay waa dhowr iyo 60 ardaydaasuu hawlgeliyaayo buurahaanu dhagaxa ka ururinaayo maalina dhagaxaanu tuulaa maalina waanu soo raraa markaanu iskuulka komboolkiisii soo buuxinay baanu kala bixintii laba wastaad buu nooga soo kaxeeyey dawladda hoose labadii wastaad baa khaydka noo xidho oo aan u dhiidhibnaa dhagaxa waa ardaydii dabeedna waraaba tuurkii dabeedna jaygii
daamurkiibuu nooga turay wuu yidhi dayow balow ilaa waana kulul yahay waa la karinayaa waana carruur yare kaasuu nooga turayoo dadkii ku bamgaraynayay ayuu keenay iskuulka compoundkiisa intii deyrka ahayd oo dhan waxaanu ka dhignay laami waa dhowr iyo 60 waxaan soo hadal qaaday beri dhaxaasoo carruurtaydii qaar ku jireen munaasabad lagu qabtay iskuulka ayaa soo hadal qaadan waa sawirka annagaa samaynay beriga taariikhdu inta ay ahayd ayaanu samaynay iskuulkiiba carruurtaadi gashay carruurtaydii baa gashay oo dee ka baxayso oo yaa dabeedna halkii baa ka soo qaadan maxaa kordhiseen waa kaanu dhowr iyo 60 kii dhignay ayaa yaalle maxaa ku darsateen walaahi sakadaanu samaynay hadda sakada dhisay oo jaajuurka marka sawirkii ciidda naloo keeno isku qaska iyo makiinada iyo karogida iyo rushaynta maalinta dambe iyo waxaasoo dhan aanu qabanayna ma garanaysa waa taariikh waa sakadaanu dhisnay baa marka anagu carruur ah taa annagaa dhisnay waa ku faannaa sawirka annagaa samaynay waa ku faannaa dadku dee inuu wax kordhiyo weeye oo kuwa idinka dambeeyaana ay wax kordhiyaan baanu filayno waa annagaa deele war waxaa annagaa samaynay idinku maxaa u sheeganaysaan iskuulkii intii ka ballaaran ka arday badan ka macallimiin badan ya ka waalid badan ya maxaa qabateen marka waxa weeye taariikhda xusi doonta waa halkan ka qabateen taariikhda ayay xusi doonta ha kala hadhin ee wada waa wax idin qormayo idin yaallo uuni wadabaan ayaan idinku runtii idinkula sii dardaarmayaa nabadgelyadana dee guud ahaan idinkoo wixii lasoo xidho u xil saaran oo baan aad tihiin baan waxaa loo dhiibtay inaan laga waayin ah jeeg iyo warqad sharci oo lagaga saara mooyaane idinna dee waxaa tihiin baankii dadka wax dawladu idin dhiibatay oo waaran idinku yimid oo intaa hay lagu yidhi intii oo dhammaysta mooyaane inaan lagaa waayin ama amar ka dambeeye waaran ka dambeeyey oo maxkamadtii ka awood sarraysaa soo qortay oo tiri waa lagu waayay wixii sida oo aad dabeedna rekoord garaysato taasuunbaa dee wax laga saari karaa soo galna ma aha bilaa warqad iyo bilaa waaran ka baxna ma aha bilaa amar garsoore ka baxna ma aha taasna waa laydinka doonayaayo waa tiinii gaarka ahayd dee inaa ilaashataan waa idinkula dardaarmayna nabadgelyada guud ahaan